أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. درسينا maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayada 114 ee suuratul baqara kamid ah. aayadii hore waxaan kaga soo hadalnay yahuuda iyo nasaarada mowqifkii uu mid walba midka kale ka istaagay diintiisii iyo sida ay isoo kufreen labadoodaba oo ay ugu raaceen yani nimankii mushrikiinta carabta ahna sidaas oo kale. waxaa jiray marka nimankan carabta ah waxay aad uga soo horjeedeen kitaabkan Ilaahay uu soo dejiyay oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa lagu soo dejiyay Kacbada oo beedka Ilaahay yani Masjidul Haraamkii ah in Ilaahay lagu caabudo oo kitaabkan Qur'aanka sida uu tilmaamay loogu caabudana way diidanayeen. Muslimiintu markay damcaan inay ku soo tukadaan masaajidkana way u diidi jireen. markaas Ilaahay aayadahan xaaladahaas ay ku sugnaayeen iyo sida masaajidka Ilaahay u galeen iyo lagu dhaleecaynaayo ayuu Ilaahay aayadahan ayuu soo dejiyay. aayadu halkaas ahaato oo dadkaas markaas ka hadasho لكن عند الله عدي مساجد إلهي يعني ظلم دراديس يعني كسميسة أو ضدك أديدة أو مساجد في إن العمر الديدة أيضا ويسوهز جلعان. لكن أصل أهان مسجد الحرام كقول الديدة أيوه أي موقف مركز جري أي آياته كهذا الشيء. كلا يقول ومن أظلم يا كظلم بدن ممن منع رهيبي مساجد الله إلهي مساجد ديسة أن يذكر إن لحصه فيها مساجد اسمه مجعيس لو حصه وسعى كشقي في خرابها مساجد خرابين تيدا أما هلين تيدا أولئك كواس ما كان لهم أما أهان أن يدخلوها إني مساجد صوغلان إلا خائفين أيقوا عفسا مؤجي لهم في الدنيا وحي كليهن خزي هوج أي كليهن ولهم في الآخرة آخرنا وحي كليهن عذاب عظيم عذاب وين أي كليهن يعني وحال يري ظلمك للسمايو يا كظلم بدن قف مساجد إلهي إن إلهي لو حس الديداية مسلمين تمرك إلهي كعبادة عن إلهي درتي وضوافنه وأن صلاة كتكنه أو أي كفار قريش لين ما يكون تكنيسان أنك أبيالك أنك سو قارني أصنام تماشى نوية يا لهدان لا عابد يسان لا عابد هدي كلام وح كلام أقولنا مجرته ظلم كوين مجره ومن أظلم يا كظلم بدن ممن منع الريبي مساجد الله إلهي مساجديسا أن يذكر إن لحص فيها مساجد اسمه إلهي مجعيس لو حص وسعى في خرابها كان الشقي مساجد إلى حماضان يعني مساجد تعمير أي لو جبهنيه مساجد إن لعمره وحن لو عمر على بقيبات مدوى مادي أو وإن ذا فدي سئي اسمه سئي جوشي سئي مسلمين وإن عمران تاس تعمير أي له مادي أجر بدن أي لجيه لا تعمير كلو حاجة معنوي أهو مساجد وحقوق قيمة بدنه وكعمريه markay jamaacad badan ku tukanayaan duruus lagu akhrisanayo masaajidka mar walba uu buuxo danaha muslimiinta looga hadlaayo qofkii dhibaataysan laga kaalmaynayo mashaakilka xaafada ka jira laga xalinayo masaajidka nuur yaani ku dhex yaala xaafada ayaa loogu talagalay in noqdo hadii la marka la cadilo oo dowrkiisii loo diido oo la yiraahdo masaajid ama waa la xiraayo oo lagu tukanayo ama hadii xataa lagu tukanayo tukasho wax ka duwan looma ogolo oo duruusi lagu akhrisan lahaa iyo dadkii arrimahooda lagu xalin lahaa laga mamnuuco meelaha ay marka qaar kood ka dhacday yani diktatoriyada aan ogolaan yani dadka muslimiinta inay masaajidda Ilaahay inta isugu imaadaan mashaakilaadkooda ay ku xalistaan oo dhahay sida siyaasad ayaa laga wadaa lama sameyn karo taasna waa takhriib oo yani waxa la masaajidadu inay noqdaan meeshii ummadda laga nooleyn lahaa masjidkuna waa inuu noqdo masaajidka dadka isu soo jiida oo dadka walaaleeya oo mashaakilaadkooda xalliya ma aha masaajid dadka lagu waxyeeleeyo ama lagu dhibo ama lagu aflagaadeeyo kaasoo kale masjid diraar ayaa la yiraahdaa waana nimankii munaafiqiinta masaajidka ay dhisteen oo kale oo lagu eedeeyay walladina ittakhadhu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almu'miniin mu'miniinta lagu kala geeyna kii la yiri kaasoo kale lama rabo waxa raba masaajid Ilaahay lagu caabudo magaciisa lagu xuso dadku ay yani ku qaboobaan markay soo galaan mashaakilaadka haystaay meeshii lagu xalin lahaa inay noqoto imaamka in loo la yimaado oo la yiraahdo mushkiladaas aan haysata qoysas isfuri lahaa lagu heshiisiyo caruur yani waalidkood caasi ku noqotay in lagu tarbiyeeyo oo waalidkood baari inay noqdaan loo sheego yani nuur ka baxay masaajidka inuu noqdo cidii markay soo taagto masaajidka kharaabisa oo sidii bakhaar intay ka dhigto wax tacmiir ah oo ka jira masaajidka uusan jirin
qofkaasi meesha uu ka shaqeeyay ama shaqada uu go'aansaday inuu hawl ka qabtaay waa waxun asoo cabsana inuu soo galo ayay ahaydo inuu saas u dhaqmo oo xoogan ilaahay uu siiyay inuu geliyo ma ahayn masaajidka inuu ku xumeeyo ee waxa ahayd inuu masaajidka ku camiro marka man adlamu yaa ka dulmi badan mimman qof منع الريبي مساجد الله إلهي مساجد ديسا أن يذكر إن لغحص فيها مساجد هذا اسمه إلهي مقعيس وسعك أرضي أما كشقي في خرابها مساجد كحمين تيسا خرابين تيسا إنه عبد الله مساجدك دورك ونولش أو كلها مساجدك وديدة أو كدلق يعني قولي عادي ومال مرنا لقفولي مرنا لفوري كليئة أو واحد الضنقة أو مصلحة أو مادة بلشدة وها يبقى أي سنجرين كو خرابية كاس يا كظلم بدن يعني قف كظلم بدن ماله أولئك كواس ما كان الله ما أهانين أن يدخلوها إنه يسوق المساجد إلا خائفين أيوة عبسا مؤجي يعني مساجد كوحال الربي ماشي أي كخرابين عيان أما كحمين عيان أما أي كحر عيان إن إلهي أنت كعبسان أيوة خشوع مساجد كيسوق لان أو إلهي عظمة ديسة وين كيس أنت حسوستان ماشي إنه بيت الله أيتها إنه إوهدان أو مركز أيوة قلب جود وقبوبيه أو عبسي أي كجت إنه صاق أي أحد لكن وحيك صاق أيوة كبرسن oo yani masaajidka ilaahay inuu masaajid yahay aanu ixtiraamaynin marka ulaa'ika kuwaas ma kaana lahum uma ahaanin mana u fiicnayn mana ayna ahayn wax haboonna ma aha an yadkhuluha inay masaajidda soo galaan ilaa khaa'ifin ayagoo cabsan ma ogey yani waxay in ayagoo cabsanay soo galaan laakiin ayagoo waxay soo galaan masaajidka kharaabinaya ayagoo masaajidka diidan in hawshiisa uu qabsado kuwa saas u dhaqmay oo beedka ilaahay iyo tacmiirkiisa diiday oo masaajidkii waxun ka dhigay lahum waxay leeyihiin fi dunya adduunyada dhexdeeda waxay ku leeyihiin khizyun hoog ayay ku leeyihiin maxaa yeelay مساجدك وماشي دتك إلهي يعني لو هنونين لها ماشي أي دتك كنا صن لهاين روحي المركز ساسي كدوان كدقة أو لا يعني دبعتاس وجيسنا مساجدك أو حمينا إنه وحكون قنايا إلهي سجمته السنايا الدون كان أرنتي سلاك كلا دادنايا وحوها جاجا يا ملا لأن مساجدك أي لقى صور راعي حبار أي مساجدك كقطع عاي يدتك كجري المؤمنين تاعها marka masaajidada waxa la rabaa inay duca ka imaato oo dadka yaani meel ay ku qaboobaan ay noqoto haday saan noqon weydo oo masjidkii uu noqdo masaajid dib badan oo dadka yaani shidadooda laga shaqeeyo oo dadkii la isku diro oo dadkii lagu aflagaadeeyo oo dadkii lagu xumeeyo ay noqoto qofkii saas ka shaqeeya meeshani ma aha meeshii saas looga shaqeynaayo cidii rabta inay xumaato ka shaqeyso waa inay meel kale la aado laakiin beyd ilaahay iyo xumaato ayaa la isu keenaya wax is qaban kara maaha cidii ka shaqeysan ayada ku gubanaysa oo fi dunya adduunyada waxay ku leeyihiin khizyun hoog ayay ku leeyihiin walahum fil aakhirati aakhirana waxay ku leeyihiin cadaabun cadiim cadaab weyn ayay ku leeyihiin kuwa saa u dhaqmay ee masaajidka ilaahay dadka u diiday ee kharaabiyay adduunkana khasaaray ku joogayaan aakhirana cadaab weyn ayuu ilaahay gelin doonaa walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah ayadan waxay ka hadlaysaa واسعنimada diinteena oo hadii mesela yani qofku uu safar u yahay oo ay qibladu ka dhunto marka qaar kood qofku uu wareera oo jihada ayaa ka dhumaysa meel uu tukado marka uu garan waayo intuu dadaalo oo uu malamaleeyo meeshii uu yiraahdo Allah ilaahay meeshan ugu dambays ay qibladii kula tahay meeshaas markuu u jeeso salaadiisa inay ansaxayso ay aayadan sheegaysaa oo waxa laga yaabaa qibladii meel aan haynin u jeedo hadda mesela inaga Soomaali markaan joogno oo kale xagga waqooyiga loo tukada nin hadduu intuu safro uu wareero oo intuu dadaalo meel banaan iska istaago oo tuka isiraado oo meeshii waqooyiga yani loo tukan jiray intuu waqooyiga ka jeestay koonfurta uu tukado asagoo u maleynay xagga koonfurtu inay yani xaggi waqooyiga ka jirto qibladii ay tahay salaadiisu way ansaxaysaa marka qofkii wareeray inay salaadiisu u ansaxayso markuu dadaal ay aayadan tilmaamaysaa ilaahay wuxuu leeyahay walillahi al-mashriqu walillahi ilaahi ba iskale al-mashriqu qurux ka soo bax iyo wal maghrib iyo qurux u dhacba ilaahi ba iskale fa ayna ma tuwallu meel alla meeshaad u jeesataan فثم ماشاس وجه الله وإلهي وجهيس وقبلدي إلهي يعني ماشا قرحة كسو بحضو يا ماشا يقول يعني جهوينك إلهي بقى اسكاله أستغانا أدوميه سأمري مركا أي تكنايان إني قبلدي أجيستان ساسانا الاسكوغا هدي ظروف أي كانتو أو قفك قبلدي أجران وايو مال الله ماشا أجهاد أدونك كمد أجهيستو إلهي مبا اسكاله واجهة إلهي دادالكاس واجتهادي أما دادالكاس والغا بالمرينه meeshaas asaga qiblo waa qofkan wareeray qibladiisu waa meesha markaas uu sii jeedo way macna haday doonto qiblada ha weedaarsanaato ha ka duwanaato marba haduu intuu dadaalo oo yiraahdo halkan aan ila tahay oo halkaas uu salaad u xirto salaadiisaas way ku ansaxaysaa marka walillahi ilaahi waxa ilaahi iskale al-mashriq qurux ka soo baxay wal maghrib qurux u dhac fa ayna ma tuwallu meel alla meeshaad u jeedsataan markaad wareertaan oo aad u dadaashaan meesha aad istiraadaan kama dambaystii waa halkan oo u jeedsataan فثم ماشاس وجه الله إلهي وجهي سالكاس أيات يعني وجه إلهي وحلقة وذا يعني قبلدي إلهي وإن أمر إنا أجيسنه ماشاس أقدم بيس اجتهادك وكل ماضي هالكاس أيات قبلة إن الله إلهي واسع الله واسع وعلمك واسع يعني
عليم وآد العلم بدن أيو أهذا والروح قبل ما أهنا حتى أتو كذي نيديس أيو إلهي أوجي هايو نيداس أيو إلهي أقرايا وعليم ننكس ويا لي معه هدول لكن أسوء أوجي قبل ما ماشى جرت وريرسنين ويرهذا مالك لان سيد سنايا لك صلاة كم أنصح يسوع محيا لي إلهي لما خيانة كروا عليم أصلا أمر كوسينات قبل أسوء جيسته مال أنا هنا ده جيسته عادي تاينا لقى الماء لكن هدول إلهي بكل وجه وريرسن تاي قلب جاهن إلهي ووجي هاي ماشى أسوء جيسته يا قبل كوا محيا لإلهي علم جسر وواسع وأنا عليم آد أيو إلهي وحوي قانا علم جسر آد أيو بدنيا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون آياتها وحكاها اللايان يعني نمانكي قالوا أها يهود يا النصارى يا عربتي مشركين تأهيدبا يعني ماشا أيو قاري مدح أضي قوضو إسكت داف إنا النبي وحكاش شيقان وين تاي دافين أي إلهي وحكاش شيقان مركز أقن حمدو هذا إلهي وحو يعني وكن الزهن يهي صفاؤنا الهين أي كسفين عيان أي إلهي أيضا إنه شيقان يسيئوا هالين وقالوا حير هذين قالوا أما يهودها أهذين أما النصارى أهذين أما مشركي عربها أهذين وحير هذين اتخذ الله إلهي وحو سميستي ولدا الماء يسميستي لهن حيدا إلهي أيا الماء علي يهود وحير هذين إلهي وحو علي نيل هذا عزير كريستان كنا وحير هذين إلهي وحو علي نبي عيسى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله نصارى وحير هذين نبي عيسى أي إلهي علي كفار قريش وحير هذين الملائكة بنات الله ملائكة أيا قبل إلهي صدح اسكو صدره وحير هذا إلهي الماء يسميستي وقالوا وحيد اتخذ الله إلهي وحو سميستي ولدا عرور سبحانه إلهي وأوكن زهنيه عرور إنه سميسته بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بل اسكدافين عرور إلهي سميستي له إلهي وحوليه ما في السماوات كوحي كسغن والأرض لك وحي كسغن إلهي با اسكاله بمعنى المهم حلو سميستا سيده ضبا dadkan markay ilmo samaysanayaan waxay u samaystaan ruux walba wuxuu leeyahay adduunkan in yar ayaad joogtaayo hadhow waad duqoobi doontaa marka hadda inta aad shaqaysan karto dhalinyarada tahay caruur inta dhalasho oo aad koriso oo ay weynaadaan markii bari adigu aad duqoodo oo aad howlgab noqoto caruur dhalinyaro ah ayaguna markaa soo xoogaysay oo nolosha yaani la qabsaday hadhow ha ku beeleen isbitaal ha ku geeyeen gacmaha ha ku qabteen marka duqoodo garabka ha ka qabteen daciifnimo ruuxa ku jirta oo uu ka fikiraayo hadhow marka uu daciif noqdo garab meeshuu ka hela ya caruur loo sameystaa ilaahay koonkan oo dhan ayuu iska leeyahay marka caruur wuxuu u sameeyay meesha ma taalo way macna caruurta idinku baa sameeysato dacaf idinku jira ay caruur u dhalataane ilaahay caruur waxba kuma falaay maxaa yeelay wuxuu leeyahay ballahu ilaahay wuxuu leeyahay ma fi samaawaati wixii ku sugan iyo wal ard dhulka wixii ku sugan kullun dhammaan lahu lillahi ilaahi ayay qaanituuna adiicayaan samaawaadka iyo dhulka wixii ku sugan oo dhan ilaahi ayay adiicayaan ama ha u adiicaan sir ay raali ka yihiin ama ha u adiicaan si lagu qasbay dawcan oo karhan ama raali ahaansho ama qasbitaan muuminiinta malaa'ikta ahlu khayrka oo dhani ilaahi ayay adiicayaan ayagoo raali ah oo ku qanacsan cibaadada ilaahi oo ku macaansanaya oo wax dhibaan u arkaynin gaaladana markay dhibaato ay la soo gudboonaato oo baduhu ay maraakiibta kula dagaayaan ama ay diyaarada ay si ay hawada wala xumaato ayaa wixii beenbeenta inta iska iloobaan ayay leeyihiin ya Allah ilaahay uu nabadbaadi da'aw Allah mukhlisiina lahu diin marka insaanka dhulka joogay ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaade ilaahay ayuu u hogaansami ama si uu raali ka yahay oo iimaanaha ugu hogaansamo ama si lagu qasbiha u hogaansamay marka kullun dhammaan lahu lillahi ilaahay ay qaanituuna u hogaansamayaan badiicu samaawaadka allahi bilaabay ayuu ahaaday ilaahay abuuritaanka samaawaadka ilaahay ayaa bilaabay iyo wal ardi dhulka ayadoo sama ayna jirin meel uu ka fiirsay ama uu uga dayday ayadoo aysan jirin ayuu ilaahay sama abuuray dhulna wuu abuuray badiicu samaawaadka allahi abuuray macna abuuritaankooda allahi bilaabay ayuu badiicu samaawaadka allahi abuuray oo bilaabay iyo wal ardi iyo dhulka wayda qada amran hadii uu arin xukumo ilaahay haduu doono arintaas inay ahaato oo xukunkeeda ilaahay uu rido arintaasi ay u ahaato fa inma yaqulu wuxuu dhahayaa lahu amarkaas wuxuu u dhahayaa kun ahaw amar yahow fayakun amarkiina uu ahaan yani ilaahay abuuritaankiisu wax lagu rafaaday oo sida dadku ay wax u sameeyaan oo guri baa la dhisayaa markaas dhul la qodayaa oo shub lagu shubayaa oo wax la sameeynayaa meeshaas ma taalo haduu ilaahay cir ayaan abuurayaa markuu yiri cirki kun ayuu ku yiri hadii uu dhul abuurayana sidaas ay asbaabtii uu ku abuuri lahaa 7 maalmood yani 6 maalmood ha ku abuuro
لكن لحداس ما المضادكم بوحلقوا براي ماهنا يعني واحد عجز وكجري أو لون النسنا يمجرته وما مسنا من لغوبة إليه وإذا قضى أمرا عرين هدي وحكمه فإنما يقول له حكمها يا كن أهو فيكون أهانا يا شيء كل غير. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية أيضا حكاها الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم مركي لصوص صاري dad waxaa jiray madaxnimo markaas haystay oo qabiilka Quraysh la yiraahdo iyo qabaa'il kala cid walba hogaan ayay lahayd sida Quraanka uu mar walba tilmaamo dadka xaq ka hor yimaado waa dadka madaxnimada haysta qaala al mala'u alladhina istakbaru min qawmi markii nabi laga soo dhigay yaa mucaaradnimo waxay keeneen nabigu xoolaba ma haysta madaxna ma ahee asaga maxaa loo doortay hadii ilaahay uu rabo dadku inay raacaan oo rumeeyaan nin madax ama maal qabeen oo ama reer Makka ama reer Daa'if maxaa Quraanka loogu soo dejin waayay ama si kala dii loo yiraahdo waxay adigu rasuul nooma tiide maxaa adiga kaliya rasuul aad tahay dadka fariin gaarsi lagu leeyahay ruux walba ma asaga si toos wax loogu sheego marka madax adaygaas ayuu ilaahay inoo tilmaamaya ay nimankaas ku dhaqaaqeen wa qaala alladina kuwi waxay yiraahdeen la ya'lamuna aan waxba garanaynin waxay yiraahdeen lawla yukallimuna allah ay hal la yukallimuna allah ilaahay muxuu noola soo hadli waayay yani ruux walba waxay rabaan shakhsi in loola soo hadlo oo la yiraahdo hebel miya ha ilaahay baa kula soo hadlaayay يعني sidaas yeel risaaladan hal meel ku urursan ee Jibriil intuu soo qaado oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu keeno nabiguna ayaga u sii keenay ayay diideen waxay rabaan mid walba khad asaga kaligiisa oo toos oo Ilaahay ugu xiran in laga soo hadlay rabaan rasuulka u diideen rasuulnimada marka waqaala alladina kuwi waxay yiraahdeen la ya'lamuna aan waxba garanin aqoon male laana aqoontu waxay keenaysaa Ilaahay maamulkiisa in faraha looga qaado لكن إلهي إن الله maamulo oo la yiraahdo kan maxaad ugu soo dejisood kan ugu soo dejin weeyday yani arinku saas ma ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum ma ayaga qaybina ilaahay naxariis meeshu ilaahay risaaladiisa geeysanay asaga ayaa yaqaanay marka waxay leeyahay lawla yukallimuna allah ilaahay muxuu noola soo hadli waayay aw ta'tina ama maxay noogu imaan weysay aayatun aayad maxay noogu imaan weysay yani mu'jizo maxay noogu imaan weysay kadalika sidaas ayay qaal alladina ku yiraahdeen min qablihim ayaga ka horeeyay مثل قولهم هذا الكوضة أو كالأي يراهدين يعني هذا كان أساقع أو رسول كالديدايو أو حجة أو الروح والبقوليه أنا محار رسالة اللي يقصوا دجواي أما اللي يلسوا هلواي كواني كواي بالعوين ما هي عد والبقوا أقوان عن الله إنه أيه كون ريسينا صاعم بينه جيرين مرك ور لوجه الرئي بين من كان يراهدين أو حسب ما كيرين كذلك السياسة قال الذين كو يراهدين من قبلهم أيه كوري مثل قولهم هذا الكوضن أو كلام بيراهدين كو أيه كوري نساس أو كلام رسوش أبينيين تشابهت وحاء سوء كاتي قلوبهم قلوب تضيع سوء كاتي يعني قال كي مركي تاريخنا اللي بالله بأي جوجي إيه قال كمان أنت قيامها يدعي دون جوجاي وقلبك هو اسكم مذا محيلا وحكم ذي سيهن حق ديد نمتك حق يسل ديدايان مركا تشابهت قلوبهم قلوب توضع سوء كاتي ويس شبه هذا قد بينا الآيات آيات كواندين عديني قد حقيقة بينا وان عدين الآيات آياتك لقوم قولا أيان وعديني يوقنون أو وحيقين آيان قولا وحرمين آيان آيات هذا اللي سيسوق أو معجزة أو قرآن كان كواسع حسن أما كواضح حسن لما أركايا لمن هلايا مركز ساسا وحا قد بينا الآيات آياتك أيان عدين لقوم قولوا يوقنون أو يقين آيان إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك وان كدرنا النبيو أنك أيا كدرنا بالحق حق أيان كلا درني مركز آيات معنى نلوسو دجية إيو معنى الله سوحل إيو warkooda cid ku jirta ma lahe amarka ilaahay un baa socone rasuulka ilaahay warkaas ay leeyihiin xunna u adkayso u sabir ogowna in adiga aad rasuul ilaahay tahay afkoodan in waxba kaaga qaadaynin inna arsalnaaka annaga ayaa ku dirnay bil haqq haq ayaan kula dirnay bashiiran adiga oo bishaaraynaysid iyo wanadin adiga oo digays wala tusalu lagu weydiin maayo nabiyow an ashaabil jahiim jahiima asxaabteeda laga warsan maayo oo ruuxii intuu gaalooba naarta gala nabi wuxuu naarta u galay oo iimaan qalbigiisa aad u gelin weeday si uu naarta uga badbaado adiga lagu dhih maayo adigu shaqadaadu waxay tahay bashiiran wa nadiiran inaad u bishaarayso ruuxii ku raaca janno ugu bishaarayso nadiiran inaad u digto ruuxii ku beeniye naar inaad uga digto intaas lagu soo diray ama qalbi inaad jeexdo iimaan aad geliso oo aad naar ka ilaaliso hawshaada ma inma alayka albalaagu wa alayna alhisaab gaarsiin ayaa laga rabaa xisaabintana annaga ayaa u joogna ilaahay ayaa xisaabinaya marka wala xali wala tusalu lagu su'aali maayo عن أصحاب الجحيم جحيم أصحاب تيدا
lagaa warsan maayo adiga oo lagu dhihi maayo nabiga adaab lagu dadka inaad hanuuniso oo jannada xaggeeda u badiso xagga aad geysee dadkan fafakaday ee naarta ku daadanayo ma adaa ka gaabiyay dacwadii maxay naar u galeen hawl adiga ku taala ma ah taas adiga inaad gaarsiiso waadna gaarsiisay risaaladii iyo amaanadii ilaahay sidii ugu sharafta badneed ayuu nabigu u gutay cidii marka ayadu qaadan weyda oo naar saas ku gashay nabigu mas'uulka ma aha cidaas hawsha sameysay ayaa mas'uulka ah walan tarda anka yahuud wala nasara nabi sallallahu alayhi wasallam markii saas loogu sheegay oo wadadiisa loo cadeeyay ayaa waxa loo tilmaamayaa nimankan yaani yahuuda ah iyo kuwa nasaarada ee beeninaya waxa ay u diidan yihiin inay wax kale ahayn rasuul maxaad u tahay oo xaq lagu soo dajiyay inay tahay haday rabtay inay raali ka noqdaana ogow sida ay raali ku noqonayaan waa inaad diintan ilaahay kugu soo dajiyay iska daysid ayaga baadilka ay wadaan aad diin ka dhigatid oo isku mowqif noqotaan markaan bay raali ka noqon laakiin inaad diintaada saxda aad ku socotid yahuudiya nasaarana ay ku sacbiyaan oo dhahan waad fiican tahay wax la sugaayo ma aha marka waxa walan tarda mar raali noqonayso anka adiga xaggaaga al yahuud yahuuda iyo wala nasaara kristaanku ka raali noqon maayaan hatta tattabi'a ila aad ka raacdo millatahum diintooda qul waxa tiraahdaa inna hudallahi ilaahi hanuunkiisa huwa asaga ayaa ah al-huda hanuun oo yahuudiya nasaaradu waxay isu haystaan in ayagu hanuunsan yihiin oo waxay leeyihiin hadaad rabtid nabi oo inaad hanuunto annaga ahlu kitaab oo diin haysano oo ka soo horeynay intaad waxan cusub ee lagu soo dejiyay iska daysid ta annaga aan haysano oo ayagu gacantooda ay ku qoraan yaktumuuna alkitaaba biaydihim ay ku qoreen taas waxay leeyihiin nala raac hadii taas aan la raacid raali ay ka noqon maxay yeelay waduu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan isku mid ayaad noqonaysaan laakiin diintan islaamka oo sidaan u qiimaha badan oo ilaahay ugu talagalay ilaa qiyaami saaca iyada in lagu amal fal ayaan haysanaya niman aan diin haysanin oo waxooda qalloocsaday inay ku dhahaan maxay ahayd taadan toosanaan kugu raacayna ma suurta galiso waxay kaaga raali noqon karaan oo kali ah hatta tattabi'a millatahum ila diintooda aad ka raacdo qul waxa tiraahdaa marka waxaad u sheegtaa nimankaasi innahu dallahi ilaahi hanuunkiisu huwa al-huda inuu hanuun yahay ilaahi diintiisa in la raaca ayaa hanuun amoogi yahuud raali gelinteed ama nasaara raali gelintood maxaad rabtaan la yiraahday hanuun taas ma aha waxa hanuun ah ilaahay muxuu yiri ilaahay muxuu naga rabaa diinta ilaahay waa midee hanuunku waa sida innahu dallahi wal huda wala in tabacta hadaad raacdo nabiga waba raacaysid ahwaa'ahum hawadoodu sida ay jeceshahay hada aayada ajibsanaysa nimankan yahuudiya nasaara la yiraahdo mowqif loogu soo hogaaga male marka hore waxa la yiri ila diintooda aad ka raacdo diin xataa meel u sii taalo oo ay thaabit ku yihiin oo loogu imaanay xataa male haday meel intay ku calaameeyeen ay ku yiraahdaan maanta sidaas aan rabnaa inaad noo yeesho oo aad tiraahdo haye waan idin yeelaa meeshii aad ugu timid ma sii fadhinayaan intay ka sii guuraan ayay meel kale ayay hadana ku sii dejinayaan halkaas soo degay kulay hadana marka man daba socon karta adiga waxaas marka waad ku daalaysaa adduun iyo aakhira la'aan ayay ahaatee wa anna hadha siraati mustaqiman fattabi'uhu diin waadi'a oo muslimiinta ilaahay ugu talagalay in adduunkooda iyo aakhiradooda ay ku badbaadaan ayaan haysanaaye in kitaabkeena aan ku ekaano ayaa la rabaa habkan ula dhaqmaynana yaani diinteenu si loola dhaqmi lahaa yahuud iyo nasaaro way inoo sheegtay kii nala dagaalayo waan la dagaalaynaa kii aan nala dagaalaynin oo gaalnimadiisa asaga iska haysanaya ha iska hayso asaga naarta la gelinaya oo quraanku meeqo kaga hadlay suuratu nisaa ayaan ugu tagi doonaa asoo kala qaadqaadaya oo dhahaya kuwa idin la dagaalana yaani waad la dagaalaysan kuwii idin nabadgeliyana haday idin nabadgeliyaan fama ja'ala Allahu lakum alayhim sabila wadaad kula dagaashan ma haysataan kuwa kala jira oo saas yaani calaaqaadka la kala yeelanayo mid walba way xadidan tahay laakiin waxa doqon ah ama dabaal ah ruux intii diintiisa laga soo waday wax aan diin ba haysanin oo kulma maalin meel dagaaya kaale ani raacna meel ku geyn hadii saas ay noqoto adduun iyo aakhira la'aan ayaa meesha ka dhacaysa marka wala intabacta hadaad raacdo nabiyow ma raacaysid ahwaahum naftoodu si ay jeceshaan diin ma aha waa dad raali gelintay hawaan dhamaanayna hadaad daba socoto bacda alladhi jaa'aka markuu ku yimid kadib min al-ilmi markuu ku yimid oo kitaabkan quraanka markuu ku yimid kadib intaad quraankan isku laabtood meel iska dhigto hadaad nimankaas hawadooda daba socoto oo maalinba meel ay ku raraan ما لك كوما سغناني من الله إلهي حقيسة من ولي متحريرية ولا نصير عد كو غرغارته مهري دونتid يهودي بان wax ku tareenin nasaara wax ku tareenin ilaahi cadaabkiisa markuu kugu soo dago ma laka kuma sugnaani min allah ilaahi xaqiisa min waliyin mid xiriiriya wala nasiir mid ku gargaara mehlis alladina aataynahum alkitab kuwa kitaabka aan siinay yatluunahu haqqa tilawati yaani markan kitaabka la siiyo kitaabka yahuudiya nasaaradu quraankeenu waa manhajka ilaahay ugu talagalay dadku inay ku badbaadaan markuu wax ka sheegayo yahuuda ama markuu nasaarada ka sheegayo abtirkooda wax kama sheegayo oo halkaas ay ka soo jeedaan arrinku ma ah waxay tahay waa hab dhaqankooda
qaarkood way soo islaamayaan markay soo islaamaan yani meesha uu ka soo jeedaa yahuud ahayd waxba kama dhibayso waa la amaanaya aayadka wuxuu ilaahay ku leeyahay laysuu sawaa'an min ahli alkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa alleyli wahum yasjuduun marka qur'aanku yani cunsuri ma ah yani dad uu la dagaalsan yahay oo qabiil ahaan ama qowmiyad ahaan uu la dagaalsan yahay ma ah khalqigan ilaahay waa ilaahay ayaa wada abuurtay waa addoommo ilaahay ciddii manhajka ilaahay ka leexata midabkay dooni ha lahaato meeshay dooni ha lahaato qiimo male ciddii manhajka ilaahay qaadata midabkay dooni iyo meeshay dooni ha joogtee sharaf ayay leedahay hadda waxaa la ammaanayaa dad ahlu kitaabka ah oo yahuud ama nasaaro ahaan jiray oo soo islaameen oo islaamkooda u wanaagsanaaday oo kitaabkii tawreed ahna yaqaanay ama injiil yaqaanay qur'aankana bartay kuwaas waxaa la yidhi ulaa'ika yuutawna ajrahum marratayn yani waxaa la siinayaa ijaarkooda laba mar labadii kitaab ay isku rumeeyeen marka aladiina kuwii aataynaahum alkitaaba kitaabka aan siinay yatluunahu way akrinayaan kitaabka xaqa tilaawatihi akrintiisa xaqeeda ayay akrinayaan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilkitaabi kitaabka ayay rumaynayaan waman yakfur qofkii ku kufriya bihi kitaabka qofkii ku kufriya fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray ayay ahaadeen yani kitaabkan qur'aanka waa lagu badbaadaa ciddii qur'aankan sidii ilaahay ugu talagalay u akhrisa ajir badan ayay leeyihiin ina aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur ruuxii laakiin kitaabkan qur'aanka addiida qofkaasi khasaaro ayuu dhex fadhiyaa aladiina aataynaahum alkitaaba waxaa leeyihi kuwa kitaabka la siiyey yatluunahu kitaabka ay u akrinayaan xaqa tilaawati akhrintiisa xaqeeda ayay akhrinayaan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna way rumaynayaan bihi kitaabka ay rumaynayaan waman yakfur bihi qofkii ku kufriya kitaabka fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alkhaasiruun ayay ahaadeen yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow aayadan qur'aanka ah reer banu israa'iil yani oo horey loogu soo bilaabay macnaha suuradda bilowgeed aan ka soo bilownay aadna looga soo hadlay intii taariikh ee yahuudda ay soo mareen ayaa mar kale haddana ka sheekaynta laga sheekaynaayo waxaa lagu khatimayaa oo loo sheegaya nicmadii ilahay in marka la xusuusinayo markaas waxaa la yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow yani israa'iil waa nabi yacquub awlaadii uu dhalayow udkuruu xusa nicmatiya nicmadayda xusa allatii nicmadii ancamtu aan nicmeeyey calaykum korkiina nicmooyin badan ayuu ilaahay siiyey ummad walba marka diinteeda ay ku dhaqmaysana ilahay wuu u nicmeeyaa udkuruu xusa nicmatii nicmadayda xusa allatii nicmadii ancamtu aan nicmeeyey calaykum korkiina wa annii anigu fadaltukum waxaan idinka fadilay cala alcaalamiina makhluuqaadkii markaas joogay ayaan idinka fadilay wa annii anigu fadaltukum waxaan idinka fadilay cala alcaalamiina caalamiin zamaanima ayaa la yidhahdaa yani reer banu israa'iil markii ayaga risaalada loo dhiibay ee nabi muuse uu la joogay qibdiyiintii masar joogtay iyo ummadihii kale ee aan kuwaasba ahayn kuwa ilaahay uu fadilay ee nabiye uu ka soo dhex saaray ee uu ilaahay uu karaamiyey ayaga ayay ahaayeen ee caalamiinta hadda joogtaay reer banu israa'iilka hadda joogaay kama ay fiicno hadda waxaa ugu fiican oo hadda risaaladii lagu soo wareejiyey oo ammaanadii inay gutaan laga rabo muslimiinta xil wareejintaasna waxay dhacday habeenkii nabiga la dheelmiyey sallallahu alayhi wasallam laylatul israa wal mi'raaj nabiyadii oo dhan ayuu nabigu tujiyey oo imaam uu ahaa imaamnimadaas waxay tusinaysaa hawshii aday kugu soo wareegtay hawshii laga wareeg waay macnaha marka ummadan ummad maxamadiya ah ayaa hadda laga rabaa inay risaaladaas qaadato oo ummadaha kale ka fadli badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ah markaas waqtigaas la joogay reer banu israa'iil ayaa fadli badnaa waxay waa inay fadlatuhum cala alcaalamiin wattaquu ka dhowrsada ama ka cabsada yawman maalin laa tajzi ayna abaal marinaynin nafsu naf can nafsin naf kale xaggeeda shay-an waxba ayna ka abaalmarinaynin maalin ayna dadku waxba isu tari doonin waa maalinta qiyaamahe reer banu israa'iil oo maalintaas ka cabsada wattaquu ka cabsada yawman maalin laa tajzi ayna jaazinaynin nafsu naf can nafsin naf kale shay-an waxba ayna u taraynin walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa naftaasi cadlun madax furasho aan laga aqbali doonin oo qiyaamo markii la tago lacag ayaan bixinayaa naarta yaan la igelinin ruuxii naari ay u waajibto laga yeeli maayo walaa yuqbalu aan laga aqbalaynin minhaa iyada cadlun madax furasho walaa tanfacuha aysan anfacaynin shafaacatun ergo in la soo ergeeyo oo la yidhahdo ruuxan iska daaya aniga ayaa ka erge ahe walaa ayna anfici doonin maalintaas ka cabsada oo ruux walba wuxuu soo camalfay lagu abaalmarinaayo walaa tanfacu aysan anfacaynin shafaacatun walaa hum aysan ahaanin yunsaruuna kuwa loo gargaarin aysan ahaanin maalintaas reer banu israa'iil yaa idin sugaysee intaad iska daysaan xaasidnimada iyo madax adayga kitaabkan qur'aanka iyo nabiga la soo diray isku raaca oo rumeeya haddaad diidaanna maalinkaa unbaa naarta laidin gelin doonaa cid idin gargaari doontana ma jirto walaa tanfacuhaa shafaacatun walaa hum aysan yunsaruuna kuwa loo gargaaro darsigeena maanta intaas ku egaya wasala allahuma calaa sayidina maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.